السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الكينا ما قديين دقل كسر الدنيا ذات كتشوف تنصاحب بيال الله نومي آدمي قدمانتي وأستين والله شيء الحمد لله فريا ونصيحة ما شاء الله نودعه وبرامج كوري الله هبين آخره وما أنت كواد مساج أنت تقول يسوق بيو قرق إلهي يا مسلمين تكتو كذان ميل وحنا ما يصدق الله قلب حده والله دسوا ميل كقالسن مساج أنو ما مغلين يشترون وما مغلين يو ما واحد ترى هذا مظلة مرخات دقو مساجنا دقح دقو مساجد قبيعة وأنا قدام بيا رجعنا هالراه يحكي عن كل احتراق جدي وهي حافظ صومالي دقنتها يو أي كل عصب تاوي قال له دقي وأضرب كل عي أيام نشوفنا وكمية حفظها كويا لما قالنا نيروبي مساجد كانوا تشهدان هو تمر ولا يسمو مرة الحمد لله رب العالمين ضد محسنين وهو جيسيين ورجعنا هالراه يحكي عن كل وصوماليات با موقتي أما مسلمين بدي قارب بدل المسلمين كل وصومالي ده هينه أيام كسوق جرسيي طبعا كدم برمضان أيام مقال كان داون إنسان واحد يكون أصلا يا صاحب يال قف كستوبة إن هذا واحد بدلنا كل احتجال إنسان واحد يرى هذا كل حشون ومساج كانوا يسنو وينوبل وضع مقال كيه سوى ما يسترن ولقيت كان ينعطى وطن إذا من الأساس إلى كريتشينية إن وضيادنا جود مساج كا وحنا قلينا عبارة ما كان سؤال سكوي دينا نقدها سيقلينا وين توصلنا موقت ماشوا مرة أنتوا ليه بحديثوا يقول لكم هاي صارت البحلنا وهاي الحمد لله رب العالمين أدوين حافظنا هذا نكون عليه وحافظوا باهن إن مساجد laga dhiso aad bay ugu baahan tahay waayo guriga fara badan baa laga dhisay guri la dhisana guriga Ilaahay guri ka qaalisan inuu jiro uma maleynaya mana maqal deemana jiro dambiga raaci maayo marka waxaan ku soo dhaweynayaa sheekh oo dhankayga taagan sheekh soo dhaw magacaan ku bilow magacayga waa Abuukar Aadan Xasan alxamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasuulihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du fa salaamu Allahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ummadda islaamka waxaan u sheegayaa meeshan gadaashaanada waxa ka muuqdo waa masaajidkana halkaas oo noo maray haya annagana waxaan nahay guddiga masaajidka marka hadee masaajid lama kala laha ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada marka waa masaajid ilaahay ba askale qof gaar u leh ma jiro marka annagana masaajidkii odayaashiisii baan nahay culimadiisii baan nahay marka hadee waxaan u baahannahay masaajidkii in la caawiyo marka hadee man bana masjidan lillahi bana Allahu lahu yawm al-qiyamati baytan fil janna marka ilaahay ninkii wuxuu yiri nabiga wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam ninkii masaajid markaysaa dhisa jannadu ilaahay ugu dhisaya markaysaa bayt oo markaysaa jannada ku yaalo marka insha Allah ilaahay idamkiis ummadda islaamka waxaan u sheegaynaa masaajidkii inay nala dhisaan marka ramadaan baa lagu jiraa marka waqti adag baa lagu jiraa wuu nala fariistay marka waan rabnay inaan ramadaanka ka hormarino oo markii ciid lagu tukado laakiin tabar baan waynay masaajidka waa ka hadda foundationkiisa waan soo dhameynay hadda dariishadaha soo maray haya insha Allah ilaahay idinkiis jaamanka masaajidka idin kugu dhiibaya insha Allah bal waxaan rabnaa aad iyo aad inaad noo caawisaan ummadda islaamka dal dibid meel ay joogaan wassalaamu calaykum waraxmatullah bismillah alxamdulillah wa kafaa wa bihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin walaalayaal muslimiinta waxaan idiin sheegaynaa insha allahu tacaala masaajidkan waxaan bilownay muddo adiga hadda 4 bilood camal laga joogo meeshaanaan soo gaarsiinay dhulkiisa iyo maxaan ku idhaahdaa iyo dhismihiisaba intaanu nala soo gaaray waan ku dadaalnay intii tabarteena xaafadda masaajidka uu ku yaalo waa dhulka hadda la yiraahdo Nairobi East baa la yiraahdaa khaasatan xaafadda la yiraahdo Sabaki marka insha Allah taala Sabaki tawsii kala baxdaa November la yiraahdaa qaybtan hadda oo aan ka hadlayno waxaan deganahay muddo hadda 4 sano ku sii dhow 4 sano wax baa nooga dhiman ummadda degana Soomaali bay u badan tahay muslimiin bay u badan yihiin marka insha Allah taala guryaha agtiina ka muuqdo iyo waxa dhulka oo area-da ka muuqdo dhan ummadda islaamka u badan marka insha Allah taala dadka walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay masaajidkaas inta ka dhimanana dhameystiraan meelay nala gaartaba meeshu hadda joogo qof walba u jeedaa daaqadaha ayuu marayaa marka insha Allah taala in la shubuu rabaa in darbi loo soo wareejiyo rabaa in maxaan ku raahmaa madrasa loo dhisuu rabaa maxaan ku raahdaa hawlo badan maxaan ku raahdaa meeshii meydka lagu dhaqahayo u baahan yahay hawlo badan u baahan yahay marka insha Allah taala walaalaha muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa wixii kasto ay kari karaan sadaqadu yaraan male qof walba wixii uu kari karo inuu nagu caawiyo oo maxaan ku raahdaa masaajidkaas ilaahay dartiisa ay noola caawiyaan nalana dhiso insha Allah biidnillaahi kariim waa idin salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa maxamed cali iftiin waxaan ka mid ahay gudiyaasha masjid nuur ee xaabada Sabaki November marka masaajidkani waxaan bilawnay 4 bilood ka hore marka hore ma aanan rabin in aanan media iyo dad la kaashano waxaan rabnaa anagu inaan wax iska aroorino kadib masaajidkii aan ku tukano ramadaankan hadda socda waqti dheer kadib de jeebka iska nacsoobay waan jeclayn in aanan waqtigan ramadaanka aan ku tukano masaajidkani wuxuu bartamaha kaga yeelaa xaafadan Sabaki November marka waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii ka soo qayb qaadatay oo soo gaarsi heerkan hadda uu maray masaajidka hadda wada aragteen kulay wuxuu marayaa daaqadihii kor inaan shubno waa rabnaa mid kale inaan saarno waa rabnaa insha Allah qaybta haweenka iyo qaybta ragga aan ka wada dhigno marka insha Allah saaxiibayaal wad mahadsantihiin horta farxad bay tahay saan idin sheegayo waa maalintii koowaad ee masaajid barnaamijka hor ilaahay habeen aakhiro idin soo gudbiyo ama hortiina aan keeno saan u faraxsanahay inaad si laban laabtaan oo beedka ilaahay aad dhistaan isugu tagtaan idin ka rajeenaya qof kasta waxa la baxday adigu bay wax ku taraysaa cidaad ula baxday adiga ilaahay baa soo sadaqaduna waxay wanaajisa mooyaan waxa ma xumayso marka gudahan galeynaa hadda waxaan ka galeynaa waa albaabkii hore ee iimaanku inta badan uu ka gali jiray ee ku yaala xagga qiblada marka ina keena baaxadu leeyahay iyo intuu leegyahayna waad arki doontaan gudahan ku jira hadeer waad ku mahadsantihiin saad u daawanaysaan waad ku mahadsantihiin saa wax ula baxaysaan waad ku mahadsantihiin saaxiibayaal saad barnaamijyada ula socotaan waad ku mahadsantihiin kan waa masaajide saad u kala horsanaysaan gidigii saaxiibayaal soo dhawaada bisha Ramadaan ee noo bilatay ilaahayna gaarsiiyay 10kii dambe aad muuqaalkan daawanaysaan qof kasta waxaad weydiisaa tolo maxaa sadaqa la baxday daba goostade wala daba goostaa tadambe inaad gaarsiin kale ilaahay baa og oo ilaahay baa ka warhaya inaad daba goosataan oo sadaqada waxay wanaajisay mooyaan waxaan xumaysan lama sheegin waxay kordhisay mooyaan waxayna qusana lama sheegin idan ilaahay saaxiibayaal waxba hadalka yaan naxna waxa haduu mid yahay laba lagama dhige waxaan ku jiraa masaajidka gudihiisa hadda ku jirnaa alxamdulillaah rabbil caalamiin waa masaajid aad u weyn horta ma dabaq baa laga dhigay mise waxa laga dhigay dabaq baan ka rabnaa dabaqan ka rabnaa masaajidka kor iyo hoos baan ka rabnaa oo kor dumarka leeyihiin hoosna maxaan ku raraa ragga ay ku tukadaan hadduu ilaahay idmo maxaan ku raraa masquulihiisii waa aragtaan baaxadiisa u jeedaan meeshan waa irdii laga soo galahayay iridii gelida iyo iridii bixida meesha in la soo buuxiyay rabtaa haddii ilaahay idmo marka masaajidka dhul weyn uu macnaha dhul weyn uu haystaa hadda howlo badan ayaa yaalo meeshii mideedka lagu dhaqaayay waa la rabaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala geeri way imaani waa la ogyahay masaajidkii madaaristi waa in la dhiso waa la rabaa derbigii in loo soo dhiso lasoo wareejiyo hal irid laga dhigo wuu u baahan yahay marka shaqo badan uu masaajidka u baahan yahay haddii ilaahay idmo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala noo ogolaado marka insha allahu taala walaalayaal masaajidkii waa kan waa ujeedin waa dhex taagannahay hadda kolley waxaa la yidhi maxaan ku rahdaa maxay maamahdii soomaalida ahayd maxaan ku rahdaa wax muuqda hee wax ka dhan sadar muuqda su'aal ka dhan masaajidkii waa kan intaanu joogaa marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa walaalayaal masaajidkan inaad nala dhammaystirtaan insha allahu tacaala laguna tukado waqti dhow rabaa telefoonkaaga inaad noo sheegto telefonkeyga waa 0720 996692 ku soo celiyal mar waa 0720 996692 imbesa ma ku leeyahay embese waa leeyahay haa magacee kugu qoran xuseen cabdi dhaqane saaxiibayaal aad baad mahadsantihiin barnaamijka saad u daawanayseen saan idiin sheegay aad baad ugu mahadsantihiin aniga horta farxad bay ii tahayba inaan ka soo hadlo beyd ilaahay oo idinku idhaahdo wax ka qabsada oo wax ku darsada farxad bay ii tahay waana maalintii koowaad saan idinku soo celiyay inaan idinku idhaahdo maalintii koowaad 3 jeer idinku idhaahdo muuqaal yar oo kooban waa farxadda keenaysa marka labada telefoon ay ku qoran shaashada aad aragtaan muuqaal ku qoran midna wadaadka chairmanka ka ah ama gudoomiyaha ka ama taliyaha ka Sheekh Xuseen ayaa moogtay iskala midna ana sita masaajidkan inta dad baa gaarsiiyay inaan istaba raacino oo moogtay dhamaystirno ayaan idinka rajaynayaa waliba de inaysan dhamaan oo dhowr bilood inagu qaadan baan rajaynayaa in badan bay la soo rafteen oo jeebka xoogaa iska nacas ahaa wax la isku dardaray baa halka lagu gaarsiiyay marka hadalka waxba ayaan ku tumane waxaan leeyahay inta marka la kulmayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh